waa bilow lagu dhisayo waddo laami ah oo masaafo ahaan dhan 8 kiiloomitir waxaana gacan ka geysanaya maamulka degmada Daynile ganacsato iyo shacabka ku nool degmadani iyo maamulka gobolka Banaadir muddo sanado fara badan kadib ayaa waxa ay ka qurux badan tahay markii hore oo burbur baahsan uu ka muuqday wadadani waxaana juhdi iyo dhaqaale intaba ku bixinaya maamulka degmada Daynile ee magaalada Muqdisho 8 kiiloomitir inta Facebook la qorsheeyay ay ahayd 8 kiiloomitir bar waa ilaa isbitaal Daynile insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu ilaa iyo webiga oo socdo hadii Ilaahay yiraahdo gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Cali Jaafar ayaa ka dhawaajiyay in dhismahani haatan socda muhiimadiisu tahay dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo dadka mid fududeynaya iyo in horumar laga sameeyo kobaca dhaqaale iyo kan ganacsi ee degmadaasi intuu ku ekaad doono intuu socod doono ay ku xiran tahay taasoo waxaad fahmi kartaa wado meesha in laga sameeyo waxa uu yeelan karto iyo ganacsiga ma cid kastoo isticmaalaysa ayuu anfaca ganacsi kale ma cid kastoo anfaca dadka bulshada qaybaha kala duwan oo anfaca ummadda muslimka wajidka marayso oo anfaca cid walba anfaca taas insha Allah mar walba annagu waa jecelnahay inuu dhameystirmo tabartooda si noo diidin talaabadan lagu dhisayo laamiga dhexmara degmada Daynile ayaa waxa soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan degmadani waxayna aragtidooda ka dhiibteen sida ay u arkaan dhismaha shacabka degmada Daynile aad iyo aad aan u faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waa waxaan aad ugu baahnayn isu socodka nafudaanaya waa ganacsiga wax walba waa laamiga aad aan ugu baahnayn waa wadadu waa jawaab bursaneed marka aad aan soo dhaweynaynaa waxaan ku qanacsanahay maamulka gobolka Banaadir iyo dadweynaha deegaanka oo iskaashaday iyo maamulka degmada dhismaha ay ka wadaan laamigan quruxda badan leh oo ah muddo 3 sano laami aan la dhisin aad baan ugu hambalyeynaa maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo inta ummadda ka shaqeysa islaamiyada muxsiniinta dadka ah oo wax la baxay aad ayaan ugu mahadinaynaa ma sahlana dhismo laami marka loo eego xilligan adag ee uu dalka ku jiro haddana maamulka degmada Daynile waxa uu dhexda u xirtay bilow iyo dhameystirka laamigaasi waa kan mar kale gudoomiye Jaafar insha Allah waa ayaan qorshe waan ugu jiraan meeshii laami la geey karna in laami la saaro meeshii dhagax isgala la dhigi karna la dhigo meeshii jay laga dhigi karna laga dhigo dadka bulshada degan degmada in loo fududeeyo adeega iyo socodka waxyaabaha aan xooga saarayna waaye oo insha Allah aan isleenahay waa qabsoomi doonaan tani waa ifafaale muujinaysa talaabo hore uu maamulka u qaaday dib u soo celinta bilicda degmada Daynile ee gobolka Banaadir balse qaar ka mid ah wadooyinka dhexmara magaalada Muqdisho ayaa wali waxa ka muuqda burbur lixaad leh oo ma aysan helin wax dayactir ah haba ugu darnaatee xilliga roobka guga Jaamac Maxamed Saalax Shabeelle TV Muqdisho.